مدن قدومي وحلا آد يا ما حسن تهاي سلوا كانوا حاربا إنه مهد عليو قلها الشعب كا قامنا يا قدوميها يوكحين كي سكوات يدمان حمناها برلمان كا جوشي أي كجارين محوا هاي مثلات دا شعب كا قبل كبنادر كنول جارا يسد 1 مليون كنتوا حنلاقي هاي قلها الشعب كا آد يا ما حسنتهين وبعدين كم هاد علمنا أنا وكهالله مع دولة كثير شباب قولها هذا وكيلات الشعب كذا سيدو كانوا حنا إنه ما قدرنا مدحوينها جمهورية الصومالية مدن محمد عبد الله فرماجو رمتي وعطسي سكجيدي معلمتي كالفادقي تضباط بارمان كانوا فرماي رمتي أين كجوابين قولها وكيلات الصومالية كجوابين رمتي مقالة مقدسو ما أها لما سوكوبي كرا مقام كذي iyo waxay mudan tahay waa caasimadii dalka Soomaaliya runtii waxa soo gaaray dhibaatooyin fara badan ayaa soo gaaray dawladnimada waxa hadda laga xasuusto waxa uu weyn Allah u naxariista intii ku dhimatay wixii ku dhaawacmeen Ilaahay oo boogo dhaya qaraxii ka dhacay 14 Oktoobar sooba ka dhacay runtii cidii intaas macnaha og runtii maqaamka muqdisho iyo matalaadiisa iyo runtii iyo muqdisho maxay mudan tahay yani inay ka hadlaan ma ahayn runtii waxa rabaa runtii anaga waxaan heer dawlad goboleed shacabka waxaan leenahay reer muqdisho haddii aan nahay dawlad goboleedka Hirshabeelle waa idin barbar taaganahay runtii xuquuqdeena inay heshiin runtii aad ayaan muxuu ahaay idinku barbar taaganahay kuna dadaali doonaa cod dheer iyo cod gaaban waxaa kaloo ilaa waan rabaa inuu mahad celiyo xildhibaanka hogaaminaya labadii muxuu ahaay guddi ee isku daray Ibrahim Isaaqiyro runtii guddiga farsamada runtii hadduu keeno wax aan isku fahmi karin nafteeda ayaa dhibaato keenin lahayd laakiin wax aad u qurux